الله كسمت بحي وإزدلين وين إسفعلين قبيلة ذاني دودنا مدايان شبنا مدهان قبيل باكو قفلن كل قود جوية هياتاي حديثن إسليهن ويحانو سنيان كل قود اسكو قبيل ميدانين هاتو صودا حقالا وي ميدب تكوريان كل قود الله أمعين سومالي ذنا قبيل بادلي قبل قبل داي فعلية إن هبل وايل لما جوجي دادكي دالكابا انت دادو تاشن قمسينا قعمهينا انت انكو دونن درديرالي دحذينا انكسارنا مانتي اني سافينو قلبي فورا اني ستوسنو دوني ذاني تلطينا على جان قدني وركيغا من لحسادا مانت بيري ماهي قبل وركيسا ماشا انكو حرني ودن كينا ودا جيرنالكا انو دارني قعمها اسقاتا حابات كان اسي سارة سنية اسكو سارة قبل وركيسا داقا داكا كتورني قبل وركيسة دودنا مدايان شبنا مدهان قبل باكو قفلن كل قود جوية هياتاي حديثن إسليهن ويحانو سنيان كل قود بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaani waa xarunta la talinta dadka iyo horumarinta shaqada Dr. Safiin. maanta halkaan waxaa baaq ka soo jeedinaysa nabadoonada shacabka Soomaaliyeed Dr. Safiin oo ku baaqaysa meel kasta oo dagaalku ka jiro in la joojiyo dagaalada qaas ahaan hadda dagaalka soo cusboonaaday ee ka dhacay Baraawe. waxaan leeyahay dagaalka ka socda Baraawe haddaan nimida waxaan baaq u soo jeedinaynaa mid islaamnimo, mid haweennimo, mid shacabnimo aan u soo jeedinaynaa in la joojiyo. waxaan aad aan uga xunnahay in la yiraahdo la isku soo duulo hadeer wax aan qiimo lahayn la iskugu soo duulo, wax aan jirin la iskugu soo duulo oo dad maaragtay haddii alkuu rahay wada dhashay iskugu soo duulaan oo degmo nabad loo rabay oo hadda ka bacad aan rabnay inaan nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ama gobol la rabay inuu ka soo baxo sharaf iyo wanaag ku soo baxo la rabay hadda in hadda dagaal iyo dhibaato lagu soo qaado ama lagu kor dagaalamo shacabka, haweenka iyo dhalinyarta iyo maaragtay iyo dadka masaakiinta lagu kor dagaalamo. arrintaas arrin maaragtay wanaagsan ma ahan. waxaan leenahay haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed qaas ahaan walaasha hadlaysa oo ah nabadoonada shacabka Soomaaliyeed, waxaan baaq dheer u soo jeedinaynaa dagaalka Baraawe ka socda in la joojiyo, in maaragtay dadku walaalo waaye in la joojiyo dagaalkaas. annaga ma rabno dagaal, waa ku soo gubanay, waa ku soo baaba'nay, waa ku soo dhibaataysanay. dalkeeni dadkeeni buu naga qixiyay. ummadda islaamka meel kasta aan tagnaba waana la ka nacay. adduunka dhan meel kasta aan taaganahay waxaasuna waa sharaf darro. aan ku caan baxnay inaan nahay reer dagaal baan ku caan baxnay, qori baan ku caan baxnay meel kasta aan joogno. ma ahan maanta marka in haddeer taas la bilaabo inaan haddana qori la bilaabo oo dagaal la bilaabo oo adduunka meel kastana la ka arko la yiraahdo dadkii waa kaas nabad bay sheeganayaan, madaxdoodu nabad bay sheegayaan, sharaf bay sheegayaan, waxbay sheegayaan, Soomaali baa sharaf leh in la yiraahdo oo nalagu soo duulo oo dhaqaalaheena lagu soo duulo oo dalkeena lagu soo duulo. aad iyo aad baan uga xunnahay dadka ka shaqeynaya intaas, aad baan uga xunnahay. waxaan leenahay u sheegaynaa dadkaas hadday dad Soomaaliyeed yihiin dagaalka ha joojiyeen dagaalka si degdeg ah u joojiyeen. kuwii soo duulay iyo kuwii lagu soo duulay iyo kuwa iska dhicinaya intaba dagaalka ha la joojiyo. dagaal wax lagu qaban kara male, dagaalkaas wax lagu qaban kara male. meel kasta ay dagaal ka jiraan waxaan leenahay oo haddii Ilaahay kuu ron yahay gabdhaha Soomaaliyeed ay u soo jeedinayaan dagaal in la ka joojiyo. waa ilma la yaro dagaalkana la ka joojiyo. gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaana waxaan leeyahay ha ka qayb qaateen dagaalka in la joojiyo. ha ka qayb qaateen dagaalka in la joojiyo sida in dagaalka ay joojiyaan ha ka qayb qaateen gabdhaha Soomaaliyeed. sababtoo ah dadkaasu waa dad ayaga dhan wada dhashay meel kasta ay joogto Soomaaliya.
sidoo kale waa dad aan dhalnay annaga meel kastaan joogno gabdhaha Soomaaliyeed dad aan dhalno waayo mid qabiil naga ah ma jirto annaga mid annaga qabiil naga ah ma jirto maadaama wiilkayga aniga mid meel kasta ka soo jeedo aniga ama gabadhaydi ka soo jeedo gabdhaha Soomaaliyeed waxa aan dhashay inay meel kasta ka soo jeedaan hal la joojiyo dagaalka naca dagaalka wuxuu idiin suubiye ma jirto waad ogtihiin wax uu dagaal idiin suubiye ma jirto ilmihiinni ma ku baaba'ay dadkiinni ma ku kala tagay wadankiinni ma ku kala dheeraaday shaqo la'aan baad istaagteen gablan iyo dhibaato iyo baahi baad istaagteen waxaan kugu hambaliyeynayaa gabdhaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay hadda ka hor aysan dagaalka ka qayb qaadan dad yar ma ogi oo iska dhalinyaraahe inaysan gabdhaha Soomaaliyeed dagaalka ka qayb qaadan inay nabad ka qayb qaataan maahan oo ay og yihiin inay caruurta ay dhaleen adduunka meel kasta ay ka soo jeedaan ama ay Soomaaliyo dhawada yihiin naag marka ilmaheedii in dildila rabtaa ma jirto naag in cunugeedii maanta gobol hebel lagu dilaa ma rabto walaalayaal ka soo horjeesta dagaalada ku baaqa in dagaalka la joojiyo raggana waxaan leeyahay in ragow dalkan waa dal masaakiina dadkaana dad masaakiina waaye aqligiina dib u celiya haddaad cilmi leedihiin haddaad maskax leedihiin haddaad culummo tihiin nooc kasta tihiin aqligiina dib u celiya Soomaali ma kala tagayso والله Soomaali ma kala tagayso adduunka meel kasta joogta hadda isku soo barooranaysa hadda israbtaa hadda isku soo noqonaysa gabdha iyo ka wiilalba waxa soo kici doona kuwa magaca Soomaali qofkii kala sheega qoorti ka gooyaa soo bixi doona kuwaas soo bixi doona intaas kuwaas aad maartay sugaysaan Soomaaliya waa Soomaaliya hadda hal isku soo cirsho sharafteeda iyo wanaageedana hal isku soo cirsho hadda ha laga shaqeeyo sida dad badan uga shaqeeyeen oo hoos looga shaqeynayo oo hoos looga wado khayr Allah siiyo dad badan oo waxaan ogahay Soomaaliya hoos ka soo dhisaysa Soomaali inay isku geeyaan Soomaali inay kari hoos iskaga keenaan ay rabaan ilma adeerayaalow Soomaali diinteedu waa isku mid sharafteedu waa isku mid magaceedu waa isku mid afkeedu waa isku mid naga daaya kala qaadka cadowgii baa nagu batay gaal iyo muslim cadowgiisii baa nagu batay dalkeena waxaa la rabaa meeshaas yartaa oo aan celcelinayno bad iyo biriba in wax yarkaa lala ka qaataa la rabaa wax kale lana kama rabo annagana nala ka dhiga dad daciif oo la garaaco oo badaha lagu goro waana lagu goray wax ana la ka samaysan ma jirto maanta war gabdhaheeni sharafta badnaa dhalinyarteeni sharafta badnaa war waxaan laga samaysan ma jirta waxaas yaa baday dagaalkana la ka daayay dagaalka ka socda haddii Ilaahay ku reeyahay Hargeysa iyo Gooja Cadde iyo haddii Ilaahay ku reeyahay meel kasta ka socda halka joojiyo dagaalkaasna la ka joojiyo gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay gabdhow joojiya baaqa iyo haddii alka kilkilka kilkilaysaan raggaan kilkilaysaan oo leeyahay boqorow soo istaagiyo hebelow soo istaagiyo hoogayo baayo maryaha warfinaysaan hal la joojiyo waxa inkaga fiican male inaad baaqdaan oo ku baaqdaan nabad waxa inkaga fiican male hal la joojiyo maryaha la tuurayo ragga la dhiirigelinayo oo dagaalanay adooga alla cadaabay dagaalan leeyahay wallahi wuxuu idin tarahay ma jiraan wiilashiinni bay leynahayaan dhaqankiinni iyo hooyooyinkiin bay ay baabi'inayaan hooyada ka soo jeeda gobol kale ay dilhayaan abtiyaasha bay dilhayaan caruurtaadii bay dilhayaan waxba kama qabanhayaan wax ay ku qabanhayaan male waxaan baaq dheer u jeedinayaa anigoo ah nabadoonada shacabka Soomaaliyeed Dictoray Safiin waxaan baaq u jeedinayaa in arrintaas laga waatoomo rag iyo ka dumarba Soomaali inay Soomaalina gacanta isqabsato dagaalkaasna la iska joojiyo ilaahayna loo noqdo waxa aan sameynayna waa wax ka dheeriya oo sharciga ka baxsan oo diinta islaamka ka baxsan inaan dhiig galno wax sharciga islaamka ka baxsan waaye waxa loo ordahayaa waa wax diinta islaamka ka baxsan anigana waxaan ku hadlahayaa oo ilaahay ka baryahayaa ilaahay inuu xaqna waafajiyo diinta islaamka na waafajiyo dhiigga aan galayno ilaahay ilaahay naga soo jeediyo oo khayrka alla noo soo jeediyo oo wanaagga alla nagu soo jeediyo oo sharafta iyo diinta islaamka
إلهي نقول حق نوافجيو. هذه بعد السلام هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.